magacaygu waa Maxamed Ismaaciil Jaamac magaalada Baran gobolka Sanaag Soomaaliya Puntland Soomaaliya waxaan halka ka cambaaraynaynaa anagoo ku hadlaya codka shacabka magaalada Baran waxaan halka ka cambaaraynaynaa damaca guracan ee dalka Kenya ay magaranaysaa doonayso inay ku qaadato dhulka Soomaaliyeed iyadoo doonaysa inay ka faa'iideysato khilaafka Soomaalida ku dhex jira iyo burburka ay soo martay iyo dawladda oo wali aan aad u taagsan haddii ay moodayaan Kenyaanku inay sidaa ku qaadanayaan adduunka sharci baa jira xeerar caalami ah baa jira maxkamad bay ku jirtaa arintu kuwaas la tiigsanaya waxaan leenahay anagoo ku hadlayna codka shacabka u suura gali mayso Kenya damacaasi waana damac doqoniina ah runtii waxaan leenahay wali Soomaaliya ma dhiman wali Soomaaliya way nooshahay wali Soomaaliya waxa weeyaan way leedahay aqoonteedii iyo awoodeedii iyo aqoonyahankeedii iyo dadkii ka hadli lahaa iyo dadkii waxa kan aqoonta u lahaa intuba way joogaan waxaan leenahay Kenya arintaas ka tanaasusho dibna uga noqoto taa ka kamidana looga tanaasuli maayo anoo jooga magaalada Baran oo magacaygu Axmed Jaamac uu yahay ummadda Soomaaliyeed waxaan u sheegayaa boobka laynu ku hayo wadanka ku hayaan nimankan muxuu ahaa Kenyaanku dawladda federaalka horta waa ku ayeysannahay mowqifka ka qaata shacab ahaan haddaanu nahay annagu waa taageersanahay waana dagaal baanu qaadaynaa ummadda Soomaaliyeedna meel kasta ay joogto shidaalka inaga wada leh magacaygu waa Saalax Burkuud waxaan joogaa gobolka Sanaag gaar ahaan degmada Baran haddii aan su'aasha ra'yiga ka dhiibto dhulbadeedkan u dhaxeeya Soomaaliya iyo Kenya ee muranku soo dhaxgalay waa bad ay leedahay ummadda Soomaaliyeed leeyihiin dawladda Soomaaliya ay leedahay shacabka Soomaaliyeed ay leeyihiin waxaan leeyahay dawladda Kenya waa boob cad bay doonaysaa dul aanay lahayn bay sheeganaysaa waxaan leenahay shacabka Soomaaliyeed ha u midoobaan cadawga ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan ha u midoobaan gacmaha is qabsadaan waa dhul bad ay leedahay ummadda Soomaaliyeed ay leeyihiin oo la rabo in xaqooda la duusiyo oo sifo sharci darro lagu qaato waxa la sheegaya wararka igu maqaala ah in hore sarfay loo mariyay oo loo sahmiyay oo ay tahay meel congor ah oo shidaal ku jiro oo ay sahmiyeen sida daradeed ay u doonayaan in ay mataqaanaa ku murmaan oo ku qabsadaan